Xujaydii ugu horeysay oo gaaraysa 148 qof ayaa maanta ka dhooftay garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho ayagoo markaa u dhoofay dalka Sacuudi Carabiya si ay u soo gutaan waajibaadka acmaasha xajka. Ugu horeyntii wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Sheekh Cumar Cali Roble ayaa ka warbixiyay heerkii kala duwanaa ay soo martay dadaalada iyo suurtagalnimada inay dhoofaan xujaydii ugu horeysay ee Soomaaliyeed. Asigoo dhanka kale sheegay in xajkani uu noqon doono midkii ugu wanaagsanaa ay soo xajiyaan xujayda Soomaaliyeed oo hore u taban jiray duruufo kala duwan. kooxdii ugu horeysay dafcadii ugu horeysay ee xujayda sanadkan 1443 runtii guushaas oo guul weyn ah ayaan rabnay inaan maanta ilaahayna uga mahad celino ummadda Soomaaliyeedna aan la wadaagno. runtii in guushaasi maanta ay hirgasho dadaal dheer loo soo maray, dadaal dawladeed oo aad iyo aad aan loo kala haraynin ayaa maaragtay lagu bixiyay. xamlooyinka waa u mahad celinaynaa runtii madaxdooda iyo dhammaan sharikadaha sida hufan oo habsami u socod kale ee hawshan uu runtii taabageliyeen waa uga mahad celinaynaa. xajkan wuxuu noqon doonaa xajkii ugu wanaagsanay ee taariikhda ka dhacay Soomaaliya inuu noqdo rajayna Ilaahay idankiis. waxaan halkaan safar badan aan ku bixinay dadaal dheer aan ku bixinay oo mamlakada Sacuudi Carabiga aan ku soo booqanay. nihaayat Muzdalifa ayaa xujayda Soomaaliyeed la dejin jiray waa kuwana xamlaadkii shirkada way og yihiin. arintaas waan ka dhiidhinay. bidaayatu Muzdalifa amba nihaayat maaragtay mina ayaa maaragtay la soo dejiyay xujayda Soomaaliyeed. adeegyadeedu haday dhiig iyo koos ah jireen dhiig balaas iyo dhiig waa laga soo gudbay si ay marayaan biidnillaahi tacaala. hoteelo oo 5 star ayaan rajaynaynaa Ilaahay idankiis inay maaragtay xujayda Soomaaliyeed ay sharikaadkeen noo dejiyeen oo aan ku ballanay oo sidaas aan ku ballanay sidaas u fuli doontaa Ilaahay idankiis.